marka si alla idin ilaahay inooga sahlo sow madaxdii dee guryaha meeshoodii bay dagaalku ka bilaabmay waxaa dhaawacaya wax dhimashaa mid dalba looma sheegin raggii meesha joogay ee dowladda ahaa laakiin meelaan haddana waxba u jirin baa dagaalku joogaa xaggan ceelaf weyn dagaal reeraysan baa isna inagu bilaabay oo ciidamadii weerar la weeraray saddexdaa arrimoodba waa taagan yihin waxay la tahay aynu isqaybino aaski waxaan maqlaya waa daahayaa soo maa aasku waa daahayaa waa fardalkifaaya ee wada tegi been maynu maanta inku filan baase aynu diri doonnaa qolada meeshir guddoonku waxay la tahay inaanu mar haddii dagaalkii weynaa socdo deanu u wahliyoollo madaxweyne waxaanu ku beerinaba taa ceelaf weyn maanta wax howlo aan ka gelayaa maanta ma jiro ka gelayna waxaasaan leedahay golayaasha labada golayaashoodu degaankoodu waa inuu tagaado ay ku fillaadaan waarma ismaqal labada gole mudanayaashoodii waa inay hawshaa ku fillaadaan guddoomiye ku-xigeenkii golaha kalena waanu wada xidhiiri dee waynaynu isqaybinaa golahana intaasaynu ku xidhanaynaa maanta farxaanna ilaahay ha u naxariistay ha loo duceeyo faatixada aan u marno faatixa ilaahay cawl khayr qaba ha siiyo reerkiisii iyo eheladiisii iyo gedigeeniba iyo golahaba geeridu waa xaq accidentna wuu ahaado de waxaynu maanta isku canaanana ma jirto iskuma canaananayno gacan gardarana kuma bixin qadar alaa yimi allah ha u naxariiso ilaahay samiriye imaangidigeen baa haynaga siiyo bal tan kalena dee waynu wada soconno berri maalin walbana way isu imanaynaa ma haba fasax ma kala tegayne aroor walba waynu isu imanayna xaggana berritana aroortiina waanu idinka warramay haddii alleedho wixii soo qorna dee allaha u doono si goli shirki saas inoogu xidhay